maamulka isbitaalka kalkaal ee magaalada muqdisho ayaa maanay qalimadii ugu dambeeyay oo isbitaalku sameeyay kuwaas oo ay sheegeen inay yahaayeen kuwa muhiim u ah bulshada Soomaaliyeed waxa mar kale warbixin murtaas ku saabsan noo soo dirtay wariyaha Faadimo Cabduqaadir Xasan shirkan jaraa'id ay maanta muqdisho ku qabteen mas'uuliyiinta isbitaalka kalkaal iyo dhaqaatiirta ka howlgasha ay kaga warbixinayeen qalimada isbitaalka uu sameyn jiray sida bedelida sinaha iyo jilbaha mar warbaahinta la hadlayay agaasimaha isbitaalka kalkaal ee magaalada muqdisho Cabdullaahi Cabdikariin Jawhar ayaa sheegay in aad ugu fududeeyeen dadka Soomaaliyeed qalinadii dalka dibadiisa ay u aadi jireen lacagaha far badan ugu bixi jiray balse loo keenay isbitaalka kalkaal isla markaana ay ku sugan yihiin dhaqaatiir caalami ah waxaan aad ugu faraxsanahay inaan sameeyno qalinadii jilbaha iyo sinaha markii saddexaad markii ugu horeysay oo Soomaaliya laga sameeyo isbitaalka kalkaal ayaa sameeyay waxay ahayd June 6 kadib June 6 kadib waxaan sameeynay dana August iyo bishan hadda lagu jiro November iyo October total waxaan sameeynay June 6 qofood August waxaan sameeynay 19 October iyo November waxaan sameeynay 20 qof waxaan aad ugu fududeynay dadka Soomaaliya inay wadankooda ku helaan qalinadii dibadda u aadi jireen oo ay ugu bixi jirtay lacag aad u fara badan ayagoo wadankooda joogo in ay helaan facility ku heli jireen India ama Malaysia ama Turkiya ama Ingiriiska facility ku heli jireen waxaan aad ugu faraxsanahay aan ku soo dhaweynayna markii saddexaad teamka orthopedic oo ka yimid Hindiya teamkaas oo ka kooban dhakhtarka qalinka oo lafaha dhakhtarka suuxiyaha laba technician iyo dhakhtar physiotherapist oo joogo regular bukaanka qalinka marka loo sameeyo maalintii koowaad maanta kala hadii la qalab biri waa socodsiina dhakhtarka physiotherapy take care gareeyo physiotherapy loo sameeyo maalinta labaad wixii ka dambeeyo insha Allah uu socdaa bukaankii haddana waxaan ku soo kordhin waxaan aad ugu faraxsanahay inaan keeno markii ugu horeysay Soomaaliya orthoscopy ayadoo la isticmaalayo endoscopic oo dadka jilbaha ka jiran oo sida dhalinyarta kale sports ka ciyaaro dadka qalinada loo sameeyay waxay ka kala yimideen gobolada dalka dhan meel fog ka yimaadeen waxayna aad ugu faraxsan yihiin inay helaan service-kan ayagoo jooga wadankooda waxaan soo dhaweynayaa Dr. Barfiin in uu faahfaahin ka bixiyo waxyaabo uu sameeyay dhankiisa waxaa faahfaahin ka bixinaya qalimadii la soo sameeyay Dr. Barfiin oo ah dhakhtarka lafaha kana howlgala isbitaalka kalkaal Everybody in Somalia. So I am Dr. Praveen, orthopedic surgeon for the arthroplasty services here. This is Dr. Harish, anesthetist chief for all the cases in our last visit and this visit. And this is Sairam. Sairam is from Stryker India and he is giving us all the technical support for all the implants. These implants are manufactured in USA and I have used these implants before in UK as well as in India. Alagappan is our chief physiotherapist and he looks after all the patients till the next visit and make them mobile, get them to walk and perform their activities and coordinates in the day-to-day care of the patients. This is Nandish, our OT technician, for scrub nurse for all the operations that we did. Now, to tell a bit about our this mission. hooyo dahbo iimaan macalin waxay ka mid ahayd dadkii lagu sameeyay qalinka bedelka sinaha laguna guuleystay waxay u mahad celisay isbitaalka anigoo dahbo iimaan macalin ah oo isbitaalkan dadkii lagu bilaabay koow ah todobadii qof oo lagu bilaabay sintana ah aad boqol ku guuleystay inaa ay bogtayda ii bogsooto haddana tii dambe liiga camaliyo boqol aad iyo aad baan caafimaad weyn aan ugu helay xanuunkii iga hay iyo xibnaheedii aan isdhameen ilaahay isku dhameysay dadkii iigu sanceeyay ilaahay isku guulay Faadimo Cabduqaadir Xasan raadiyaha TV SBC Muqdisho